xanuunkan wuxuu igu qabtay meel gobol anoo joogo waxaan u haystay malaria inay hayso xaalad liitaan galay oo la soo qaaday waxa la keenay Muqdisho isbitaal liigay isbitaalkii ay igu dhahay maxaan ku radaa kaliyaha laga haya dhiikarna waa qabtaa oo la soo qaaday isbitaalkana la keenay waa la ila tacaalay aad iyo aad aan caafimaad ugu helay xaaladdan hadda aan ku suganahay ka soo baxday markii la baaray oo howlahan la galay adiga 12 bilood la iga dhaqowhaya aadan ugu nasri qaba shirkadda Hormuud aad iyo aad u mahadsan tahay ummadana hadii aysan aydusan ay leeyihiin dad badan baa maanta dhibaato badan ku tubnaa lahay ama aan noloshiisa la wiilahay markii hore darawal aan iska xamaashan ahay oo gobolada kala goosho alxamdulillah xanuunkan ay u soo kordhay kadibna waan soo dhacay alxamdulillah kaliya laga dhaqaal alxamdulillah kaliyaha muddo waasigi socday ma ogeyn in kaliya laga hay ma ogeyn dhagaxa isbitaalka la keenay oo digfeer dhagax yaa laga qalay kadibna waxa la dhahay dhaqada u baahan tahay dhaqadii waa awoodi waay usaalada qaarkood oo aan tagay Hormuud Foundation alxamdulillah rabbil caalamiin waa la soo aqbalay kadib aan ku soo xirmay Dar es Salaam ku soo xirmay sida lagu dhaqay insha Allah alxamdulillah waxaan ku jiraa muddo 9 bilood leh ku jiraa alxamdulillah qarashaadkii xagga waxa bixiyo Hormuud Foundation bixiyo alxamdulillah rabbil caalamiin aadan ugu taageersanahay ma sha Allah alxamdulillah